wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland oo ay weheliyaan wafdi ka socda bangiga horumarinta qaaradda Afrika ayaa maanta soo gaadhay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxayna wafdigani kormeer indha-indhayna ku tageen dhismaha wadada isku xidhi doonta magaalada Boorama iyo Lowyacaado waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay mas'uul sare oo ka socday bangiga horumarinta qaaradda Afrika oo ka warbixiyay ujeedada socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada Boorama waxa weeyaan bilowno ugu horeyn daraasadii lagu sameyn lahaa wadadan from Boorama fardaha ilaa Lowyacaado kadibna waxa ku xigi doona financingkii wadadii dhismaheedii oo taasoo qaadan doonta ilaa 8 bilood ilaa 12 bilood inta daraasadda la bilaabayo la dhamaynayo kadibna ay ku xigi doonto wadada. dhinaca kale waxa iyaguna goobtaasi hadal ka soo jeediyay hogaanka dhaqanka gobolka Awdal mas'uuliyiinta hay'adda asarda iyo culimada iyo aqoon-yahanka gobolka Awdal waxayna yiraahdeen aragtaan halkaynu ka soo bilownay ilaa iyo halka ay maanta ay marayso marka ereyadiidii hore waxa ku jiray waxaad u timaadeen bulsho aad iyo aad haraad ugu qabta wado waana wax aad ilaahay loogu mahadnaqo in mataqaanaa loo soo jeesto horumarkan waxaan mahadnaq markasta siinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala thumma waxaan siinaynaa madaxweyne Siilaayo oo dhagaxa dhigay dariiqa iyo madaxweyne Muuse ballan qaaday inuu halka dhisi doono. On behalf of the community, I'm president of Ahmad University, and the university itself has a great stake in the building of roads in this country, simply because our customers come from everywhere in the Horn of Africa. Runaantii ahaa sida loo sheegay jid ay gobollada galbeedku ay aad iyo aad ugu oomanaayeen muddo dheerna wuxuu ahaa Rio waxaynu tusaysaa maanta arrinka iyagu in aan wax noo maqani aanay jirin farxad haddii maanta halkaan joogno iyo rajaba oonu leenahay maanta Boorama ama Somaliland waxa isku xidhmaysa waa Somaliland waxa isku xidhmaysa iyo Djibouti isku xidhmaysa wadadan maanta aan joognaa wadadii himiladii odayaashii hore kolkii Ingiriisku soo galay 1886kii halkii ay sahamiyeen ee ay iska xuquuqsan halkay ka bilaabantay waa halka aan joogno weeye halka magaalada dhanka inaga xigtay ee Boon. ugu dambeyntii ayaa waxa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal waxaana hadaladoodii kamid ahaa laakiin maanta waxa nasiib noo ah orormayno waxa way wadadaalkay laakiin waa nasiib wax noo ah inay nooga soo horumartay waqtiga qorshuhu noo ahaa annagoo ka helay laga helay dhaqaale bangiga horumarinta ee Afrika aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku khasbannahay maadaama sheeguna ha ballanqaadkaygii cid kastoo nagala qayb qaadaysa inaan u mahadnaqno waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo sida uu sheegay Xuseen waxay socdaan imika xaqiiqo raadin si dhaqsaaba loo bilaabi doona daraasadii muddo 12 bilood gudahoodana waxaan jeclahay insha Allah in wadadaasi si rasmi ah ugu bilaabanto. alxamdulillah waxaan sidana madaxweynuhu qaabilay si fiican buu soo dhaweeyay mahadnaqo baan waynaado madaxweynaha oo si fiican wadadii u soo dhaweeyay iyo mataqaana maalgelintii wadadan soo dhaweeyay institutionkii shalay iyo anagii madaxda kale uu naqaabilay taasna waa fariin aan doonayno in la fahmo iyo mahadnaqo weeyaan soo jeedin dadweynaha waxaan leeyahay hal loo diyaar garoobo wadada dheer ee isku xiraysa Djibouti iyo Boorama oo aad u dheer ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noo suurto gasho. Taasiis jaamaciga wararka Boorama News Boorama.